dhacay oo halkan aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan arrintan miisaaniyadda ku jirta ee halkan lagaga dhawaaqay waxa laga dhawaaqay oo laga hadlay waxa la Soomaaliland waxa ku qoran 400 Somaliland waxa weeyaan Somaliland wax wada hadal lagu bixiyaa baalay horena 200 baan maqli jiray 200 baan Somaliland ku qorano wada hadalada Somaliland bay ku qoranta Somaliland wax wada hadal oo ka socda ma jiro 3 sano ee dawladda ku jirnay wada hadal Soomaaliya iyo Somaliland oo socda ma jiraan wax ku magacaabanina ma jiraan lacag lagu bixin karo iyo wax lagu qaadan karana ma jirto cid qaadata iyo cid bixisa iyo cid ku wada hadashaana ma jirto waayo wada hadalka Somaliland waxa la wax gudiya oo magacaabanina ma jirto waayo waxaan adiga lagaala tashan oo lagu weydiin adoo taagan oo mas'uuliyadaadi ay jirto oo cid labada gole anaga ka tirsan labada gole cid naga la hadasho weydiisay ma jirto gudigaasna wax ka jira oo sharciya ay yihiin ma jirto wax wada hadal oo Soomaaliya Somaliland 3 sano dhexyaala ma jiraan marka lacagta la leeyahay Somaliland mashaariicdiiba waraaqada qoraya waa laga joojinaya waxa la Somaliland hal cuna qabateeyo mashaariicda laga joojiyo lacagaha laga joojiyo deeqaha soo galay laga joojiyo ma 400 baa wada hadal Somaliland lagu sheegay naaba waa xaraan Somaliland la iska daayo dhibaato inuu ku filan waa lagu hayaa mar warqad la qoro codka ifur maxay ga xidhaysaa mar warqad la qoro mar la dacweeyo mar la dhibaateeyo mar la caga la qaado oo qas iyo qaqlaanqa laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Somaliland way qabtaa dibna waan ku haynaa laakiin magaceedii 400 iyo xaaraanta laga joojiyo intaasan codsanaya mudane gudoomiye miisaaniyadda in laga saaro